بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waa 14 abriil waa xilli khaliila cirku cusub yahay ilaahina raxmad iyo naxariis badan baan ka rajaynaynaa waan weydiisanaynaa waxaan ilaah weydiisanaynaa inuu Puntland iyo Soomaaliya labadaba badbaadiyo laakiin waxaan rabaa inaan arrin yar oo kale taxso Puntland waxa la dhisay 19 sano ka hor dadkeedu waxay lahaayeen himilo wanaagsan iyo rajo aad u sareysa xagee marka maanta himiladii iyo rajadii reer Puntland maraysa yaa salumiyay way su'aasha taagan aan la weydaano suuqa marayaan in oday wuxuu yiri Puntland yaa iska leh markaas waxaan leeyahay ninkii booba iska leh ninkii bahdila iska leh waxa la rabaa in la xuso Puntland waxay ahayd dad wax wada leh wax wada dhistay wax wada wadaaga Soomaaliyana wax la wadaaga mustaqbal iyo rajo fiican ku fakariyay habeen inay burburka dadka iyo dalka wixii xaray laga badbaadiyay ahay laakiin maanta xagee joogtaa baa isweydiin 19 sano kadib yaa mas'uuliyadda qaadanaya Puntland wax dadka dhistay waxay ahaayeen u badnaayeen dadkii gudaha joogay markii hore waxa jiray dad badan oo reer Puntland oo dibadda jira oo wax tara oo 28 sano juhdi badan iyo dhaqaale badan dalka galiyay iyo qayb aan wax tar lahayn banaanka markii jireen lahayn haddii gudaha joogaana dhibaato waxaan ay soo kordhiyeen ay jirinin dhowr sano waxa cagtana mariyay oo badiyay biriba xaalifiyay Canada koox ka timid dhowr sano ku xigtay in Australia ka yimid oo aad moodinayeen dalka bay helo ahayn dhowrkii sano hadda ugu dambeeyayna group Mareykanka ka yimid baan helay ma aha dadka reer Puntland banaanka jira inay bixin ma aha inaan ka xunahay ma aha inaan ka jisadarayno ama ka abaal darayno inay istaahilin inay mansab ka qabtaan ama Puntland madax ka noqdaan ma laakiin waxaan isleeyahay waxa idin soo hormaray dadkii ugu yaabka badnaa sidaas oo ay tahay haddana qaarkood aflagaadeeyay waxay yiraahdaan dalka waxaan ugu tagnay dad jaahiliina oo eber oo liita waana dalkii mansabka loo soo doontay dad badan baa sultan dhaqan iyo mid siyaasadeed labadaba soo doontay waxaan rabnaa marka inta toosno dadka reer Puntland oo wax galka ah gudaha iyo dawladda inta iska shaqaan in Puntland meesha ay marayso in laga badbaadiyo dadka aan wax galka ahayna sida ay yihiin bay ku xirmo ku leeyihiin reer Puntland ku yihiin in lagu ogaado laakiin aan dadku ayaan isku hormarin wax ma yaqaan waxa jiray xilligii Cabdiraxmaan maanse aan kaga hadlayay Puntland waa Cabdiraxmaan shakhsi ahaan uma nabcayn iyo qofaan reer Puntland waa odayna waa laakiin waxaan jeclayn in laga taxadaro dadka la xulanayo waxaan rabaa marka looma kala eexdo tan waxaan dabcan inaan la hadalo meelan kala sidaan u hadalo waa aqoon weyn maansadu waxyaabo ay qaban baa jira run ahaantii noocan ugu bilaabo irbad dulkeed xitaa waa ka fikiray inaan maansada ka raadiyo irbad dulkeed waa ka fikiray ama dalolka irbada inaan ka raadiyo marka anagu han weyn u qabnay raalina ka ahayn cadgoolin la doorto dadka taageersanaa baan ahaa waxaan islaahay waa dhalinyaro waa nin caafimaad qaba waa dhaqaalayahan baa nala ku yiri macallin buu soo ahaa baa nala ku yiri dalka Mareykanka oo dawladda iyo nidaamka kala dambeeyay ka jirto ku yimid baan waxa soo dhan baan noqonaa waxaan islaahay isbedel buu keeni doonaa haddii dimarkii hebel arkay hebel oo maandhow aad mad arrintu tahay markii la koorso maandhow maansadan marka waxay leedahay banaankan ka imid iyo waxaan ahay professor dhaqaalaha soo barto anaa banki moonaqaan anaa buush la hadli kara dalkeena badbaadin kara haddii bari loo akhriyay haddii beentii fahmo waxay ku baraarugeen inaan boorsada yar iyo buug iyo laptop ku jira barwaaqo horseedi karin hoggaankeena bislayn nin baahani boolis noqon bisada beer waardiyeyn madaxweynuhu tartanka markuu ku jiray wuxuu yiri Puntland waxay u baahan tahay nin Obama la hadli kara waxay u baahan tahay nin Erdogan la hadli kara waxay u baahan tahay nin Ban Ki-moon la hadli kara waxay u baahan tahay nin Museveni la hadli kara waxa la oran jiray afqalada aqoonta miyaa abuurta nature-ka ee dadku waxa ogaatay in wax walba ka sareyso oo waxa qiimaha la ay tahay abuurta nature-ka ilaahay aa dadka u abuuray aqoontu way kartaa rajadaas aan u qabnay waxay ku baraarugeen siyaasadda boolida banaanada nagaga timid dhamaanteed barakaca bulshada kala qaybinta qabyaalada baahinta abaaro ku baaqida
cadaaladda baalmarka musuqa u bareeridda bannaanada dhagax dhigga baronays cayrsiga khilaaf bunbuuninta shisheeye u beerfalka gumaysi ballaarinta galbeed u banaaxiga jaajuusyo barbaarinta quraaco bogaadinta gaalkacyo labada dhinac dad ehelaa degan waa la diriray labada dhinac dadkii waa ka qaxay meyd iyo dhaawac baa daadsanaa sistamkii loo noolaayo dhanna waa burburay aniga cabdikariim baa wada quraacnay iyo madaxweynuhu maantana xaggaan ka wada qadinayna haddii amniga gaalkacyo saxan suqaariyo laba nin ay wada cunaan uu ku filan yahay maxaa dagaalka loo riday markaa koor may wada quraacdaan haddii saxan suqaariba amniga gaalkacyo ku filan yahay reer galmudug waa naga bisil waa dad bisil bay ahaayeen markiiba cabdikariim meesha waa ka saareen laakiin annagu ilaa haddeer xaladkaan ku haysanaa waa ku bogaadinaya kuwa maturayaasha dadku inay saa meesha uga saaraan in odayay doorteen waana mideeyey galmudug haddeer xaaf way isu keenay heshiis bu dhexdhiga iyaga yaalo sunna wal jamaaca marka waxaan qabaa way naga bislaayeen iyagu haddaad wax qabanaysid oo amniga nabad ka shaqaynaysid inta aan dhibaatada dhicin baa laga hortagaa quraaca bogaadinta waxaa laga yaabaa kelmadda dadku inay si kale u eegaan quraaca bogaadinta inay tahay daliya baas dalkan lagu boobayo barwaaqo horseedi karin hogaankeenuna bislayn bad iyo birigaba la gaday amniga guud bay ilahayahay barbaartii inamihii badweynta kullumay ogeyn tahriib baa dadkeenu ku dhammaaday ogeyn bulshada xoolaha dhaqdiyo beeraley hadalkood lahayn bukaankiiyo dhaawacyada kuwii barakacay la dhugan waxbarashada boqol ku bixin biyuhu bajedka ugu jirin garsoorka dhammaan bahdilay fojari ahaa waraaqo bilaasha iyo fojari badan daabacdo dhaqaaluhu dalka fojari badan daabacdo bulshada sixirbarir la degay dhaqaaluhu yahay barood baarlamaanku awood lahayn barwaaqo dalkoo ku jira busaarad hamuuman timid puntland shacabkeedu rabo bilaash lagu dhisin doraad bilaash laguma dhisin juhdi badan baa lagu bixiyay qiimo badanna waa la geliyey bilaash lagu dhisin doraad burbura nina ka aqbalayn ilaa ha badbaadiye banaanbaxyo soo socdaan nidaamka xun lagu bedelin bilaa haray shaqo la qaban bilowguna fiican yahay bogaadina mudan yihiin biseelkii aragtida dadweynuhu soo bandhigay waxaan rabaa maansooyinka kelmadahan waxaan usoo qaadanaya waxaan rabnaa hadalka inaan dhextaal uga dhigto way dheer tahay maansadani waxaa jirtay xilligii marka uu tartamayay cabdiweli oo cabdiraxmaan meesha joogay aan cabdiraxmaan riixayna baa waxaa jirtay maanse la yidhahdo taaley oo aan kaga hadlaynay oo aan rabnay doonaynay in bahalka la yidhaahdo xubnaha dadka la baaro oo la shiilo oo qof walba la ogaado oo qofka istaahilo la keeno marka waxaad ogaataan qofka hadduu dhaqaalayahan yahay damiirku uma ogolaadeen inta foorjeer soo daawacdo hantida ummadda inuu ku baarto macallin haddii puntland xanaanada ardayga xanaanada ah iyo jaamacadda intaa lacag baa lagu bartaa arday lacag la-aan wax ku bartaa puntland ma joogo waxbarasho lacag ah oo ganacsigana dal ka hormari karaa ma jiro hadduu macallin yahay waa u dhugan lahaa marka waxyaaba waxay ahayd madaxweyne uu hoos u dhugan lahaa bay ka mid tahay damiirkuna uma ogolaadin hadduu dhaqaalayahan yahay inuu future soo daabacdo labadaa kelmadood su-aal baa hadeer nooga taagan reer puntland waa su-aal u taagan weeye mana rabno intaa inaan kaga harno taariikhduna waxay la tahay waa la xisaab qofka ama ilaahay baa la xisaabtamaya ama bulshada la xisaabtami doonta maansaa waxay lahayd hankii aan u qabnay waa lumay ma ogtahay hanka lumay hawada baaqatiya dowlad hanawaaga hantidaan la boobiyo musuqa heer walba u faafay hoggaan xumada waxaa nooga daran horumarkaan liita hurgumada la beeriyo bulshada hayb kala sooca midnimaan lahayn wada jir baan lahayn waxbaan wada ilaashan jiray wuu naga lumiyay hadeer taas way luntay waa khatar kaloo hadeer muuqanaysa way luntay waa la qaybiyey dadkii koox dilaaliina baa waxaad moodaa madaxweyne inay ku xeeran yihiin waxgaradkii puntland iyo isagu inay isu waayeen waxaa dhacday madaxweynuhu markii dadku u yimaado waxaa dadka reer puntland ku sheekaystaa laabtoon buu hortiisa soo dhigtaa ama telefoon maantao dhan geyn buu cayaaray oo wax bulshada u daran weeye waxaa kaloo jirtay magaaladan dadka dhul badanoo dowladda lahayd baa dad ku jiray waa la deganaa barqadii baa laga saaray maatadii rajaala nagasho waxaan isleeyahay hantidii dadka waa la soo celiyay beec baa lagu bilaabay
haddana waxaa soo socda wax dhagihiina iyo maskaxdiina sawaxan iyo qaylo ka kicin doono khatar ah haddii la isku dayo in la sameeyo reer Puntland waana uga digayaa dadka arrintaa gacanta kula jira waa arrin khatar weeye arrinta soo socota bulsho waxay tahay arrintaas waxaa la rabaa hal guri hal xero hal saldhig oo qarankii Soomaaliyeed oo dhulkii Soomaaliyeed iskaa wuxuu ku qabsaday cashuurta dadweynaha lagu dhisay inay ka tagin xukuumadda inay rabtaa inay gaday rabtaa waxaan moodaa inay leedahay dadka dhulka lahayo kugu soo gaarin waxaan idin sheegayaa marka waxaa la yiraahdaa airport garow airport baa laga dhisay boosasana airport baa laga dhisay Soomaaliya dawladda kacaanku meel walba dekeday ka dhistay airport laga dhisay waada weeyeen xoogii warshadihii dalka Soomaaliya meeyay dadku hadduu lumaya ka duulaya airport ka soo degaya ما يورشدي الصومالي ما يورشدي مريكي جوهري بلعب إيه ما يورشدي ما الصومالي حاجة كودن بين ورشدي داود إيه حاجة كودن بين واللي سويديا مش كودن بين حدي تدخل مدركم مشري ضد كلا قاضنا يه هل قف باك قيم بدل مركا أيربور هذا لا يخلي في عين هذا أيربور هذا سووا وين لكن تون أيربور ولا لسه هل هو يردك السركات بحياة قيمة بدل أما قبل يردك السركات بحياة قيمة بدل وحرنا ما أنت مركز بدلين اللي ما هذا الله معناه وحرنا دتك واويني دتك يجواوين ودتك واوين بانك ما ودتك دتك بربريوي والوي حكومة بونتلاند هذا السنة في الماضي والله سبحان سديد طبعا كبيش تطوعات إيو أقص ران كذي وحيابي داعي ليه حكومة تضويع فتح حمود بكريدين برلمان كوبي اللي هنا وقعن صحيين markii fideen baa baaf lacag loogu soo qaday carro baa la geel carra la yiraahdaa milix markaas ka dabaya caagil 2 milyan wax badan bay qaban kartay waxay qaban kartay dhaawacyada iyo agoomihii ciidamada waxay wax tari kartay ciidamada in mushaar loo siiyo waxay wax tari kartay waxbarashada dadka tahriib ardada jaamacadaha dugsiga sare dhamaysto jaamacadaha weeday in laga bixiyo waxbarashada waxay awood u lahaan lahayd qoysaska tirada badan oo awoodi kari waaya carruurta inay wax baraan in wax loogu abuuro waxay awoodi lahayd in dadka tahriibta laga reebo shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada midna isku madin baarlamaankii baa qaybsaday koobiye lixdan gacantaaga ku ansixiyeen haddii marka hore dadku baarlamaan ma soo dooran waxaan jirin baarlamaan wakiilo bulshada matala banaan baa meesha tuman beelaha qaarkood ka yimid waxaan rabnaa 66 qof haddii alla idmo doorashada soo socota oo dhalinyaro ah oo dadkii jaamacadaha iyo dugsiyada sare ka baxay inay baarlamaanka soo galaan madaxweyne fiyo caafimaad qaba oo mabaadi wadannimo leh diimeed leh akhlaaq leh inay doortaan rabnaa haddii la isku dayo in kuwii hore la soo celiyo waxaad ogaataan ciddii isku dayda Puntland burburisay ciddaasaa burburisay arrintaa ha la ogaado arrintaas uu uga digayaa waxgaradka iyo odayaasha iyo ismada dhaqanka waxaan leenahay arrintaa ha laga fogaado dhalinyarada waxaan leenahay haddaad hurdeen toos oo indhaha fura haddaad fadhideenna istaaga haddaad taagnaydeenna dhaqaaqa waxa ay qabta sameeyo dalkan ma rabna qalinka bigta in la burburiyo ma rabna lacag adag buu dalka soo galay waana loo baahan yahay weli baahidiisa baa taagan ma samaysan karo ma rabna in la burburiyo bal qof iska daa in la waxyeeleeyo waxaan rabnaa nidaamku iyadoo amniga nabad si nabad inuu isu bedelo hoggaanka xuna in meesha laga saaro hanti boobku meesha inuu ka baxo dadka reer Puntland awoodoodii iyo burjugoodii iyo sharaftoodii iyo karaamadooda inay dib u noolaato midnimadooda iyo amnigoodna inay hantani walaalnimadooda inay soo noqoto inay ilaashadaan Puntland iyagu aaminaan inay wada leeyihiin inay gartaan hadda in badan baa waxay aaminsan yihiin inay waxba ku lahayn dad badan baa waxay ku leeyihiin maxaynu ka dhisaynaa 19 sano marina waxna isbedeli waayeen waxaan rabnaa inay meesha ka baxdo waa kalka iyaga wax la yiraahdo cid kaligeed Puntland gaar u leh ma jiro cid oran ka dhaanaga ma jiro beelo badan baan hadda metel ku lahayn hal cid oran ka dhawaa kalka iyaga cid oran ka dhaanaga gaar u leh ma jirto waa la wada leeyahay Cabdiweli sanadkii hore wuxuu lahaa waxaan rabaa kursiga markaan ka degay in gaani inuu bedelo halkaa wiil baa ku dhintay isbitaalka iridkiisa xaqoodii ma siin xataa beelahaas waxay inuu xaqoodii siiyo kelmadda hadda runtii tahay inuu bixiyo ahayd run baan u qaadanay markaa soo dhaweyn lama siin martoodii xataa waa gif bay ku tahay waxaad moodaa erayga hore inay isburinayaan ma ahayn Cabdiweli la dirayna ama madaxda waxa weeye madaxdu hadday dalka iyo dadka u shaqeynayso waxa rabaa in la taageero loona duceeyo dhinacyadan la qabto dhinacyadan laga istaago hadday burburinayaan waxa la rabaa in dadku ay qabtaan naga joog waxay yiraahdaan marba kaabayaasha dhaqaalaha wax ka qabtay oo yaa nool banoni iyo xoog loo ku cayaarayo
kaabayaal dhaqaale kulligood burburay baan kor iyo hoos hagaajo kobci dhaqaale xoog buu kordhayaa meesha lagu kaftamayo kulamada ka sheegan kooxda meesha joogta makiishadooda waxa galay kobcaan dhaqaale kororka u yaqaan kooxda meesha joogta xagee jooga 2 milyan iyo 200 buu ahaa xilliga Cabdiraxmaan Farool oo qabsay 4 milyan 400 buu ku soo celiyay 2 milyan iyo 200 buu joogo maanta 3 milyan iyo 200 buu maraya waxaan qabaa xataa isaga kaga fiicnaa arrintaas marar baan iraahdaa haddii ruux loo dhimo in la raali geliyo taariikhda laga rusheegaa dambi reeban maaha odag la raadiyo Farool raali naga noqo waxaan Farool ku diidanay waxay ahayd Puntland burburinaya kala qaymintii colaadii joogtada ahayd waxaan oran jiray Puntland wuxuu yaqaanaa meelaha lacagta dakhliga ka soo baxay iyo ay degmada Garowe inuu ku xifaalin jiray ma abtirsiin inuu kala xigaan ka dhalasho maansadaas waxay leedahay inkastoo maturihii tabci jiray balaayada ee lagu talaaliyo musbaxu la kaga tagay haddana tirar dhaqan iyo tulimada u noolay midnimo lagu tixgelin jiray hadda se waa la kala tagay abooran u tarinay ay toon qadaayeen toosan oo qalantahay hilbiina taal xumad tagoogul yarfeentiyo taariikh lafta ayo qanjirada la tuuriyo uu si tun kama tagin shacabkana tif kama siin ciidanka kala tagay oo xutur shaqaalaha hadda loogu taagbaa tabarra u difaaciyay tayo horan oo ma dhalan haddana waa tartamaya dariiqada la taagnaa tan lagu aamino lama aragtano kale taariikhda lama qorin tukuuna kama amaa wuxuu yiri nin tuuriyo tukaraq u taaliyo tuugto isma qarisee ragga tulxda yeeshay subcan ku talax tagay toosan maad ka qabataan gumus loo tuiye waxaan taa ku darayaa tixdaan lagu rusheeyo maasadaan taalayda nin kasta hatriyo tib xaqi ku joogta taageero shacbiga talaan lagu agaasimay ninkay taabanaysa kan tumaaniyeelkii talafkay u socotaan shacabka u tiriyo midnada tamaniya dusan maanta naga tagin toos baa loo wajahayaa takarra waa ka fudud qofka dulmi markuu galo takarta waa ka fudud waxaan taa ku darayaa taariikhdan ridinay taatiigi bahari iyana waa tabii xiliyo toddobaad gudahood waxaan taa ku darayaa xubnahan tartamayo taageerada codsanayna shacabkan tafniidina qaar turxaan le baa jiray aad ha looga taxadaro maansada waxaan soo qaatay saasaan ku rinaa Cabdiraxmaan markii hore nacay qabaliya ma ahayn mid shakhsiya ma ahayn adeerkayu ahaa oday reer Puntland oo ahaa asii cadwale abtiriya dhashay lagu ma kala xigaan waa noo siman yihiin qof kasta mas'uul reer Puntland laakiin Puntland qofka dhisaya ee helo kan burburinayaan waa cadawgeeda hal ogaado maraan in midnimada Puntland iyo Soomaaliya ilaahay inuu badbaadiyaan ilaahu weydiinayna waxaan rabnaa isbedel inuu yimaado la macneeyay oo qiimo leh waxaan rabnaa dadku laftigoodu waxa waa mural jaban niyadooda burbur 40 sano burbur soo jiray waxaan rabnaa inay dib u dhisaan walaalnimadooda iyo wada jirkooda iyo wax wada qabsigooda in la kaco in la fahmo Puntland iyagu inay leeyihiin hanti boobku inuusan lahayn inay fahmaan bal rabaa qof kasta oo wax garanaya oo qaangaar reer Puntland way waxaan maalin arkay gabar afar jir wiil yar bay ciyaaranaysaa hooyadeeda suuqa aaday oo heesa jajabay ugu heesaysaa waxay rabtaa wiilkaas oo aan booyin oo dhibaato in loogu yimaado wallahi inta dul istaagay waxaan isir hadii madaxda Puntland inta garan lahayd wax badan baa badbaadi lahaa gabadha afar jirka waxay karatay dhulka la leeyahay waa la gaday reer Puntland oo dhulka la leeyahay waa la gaday reer Soomaaliya oo dhan ka dhaxay waxaan tii Soomaaliya ka dhaxaysay shayga markii inta la yahay gurigan hal la iibiyo iskool hal ugu bedel oo maanta iskool lagu dhiso gurigan inta la iibiyo macna u sameynaysa bulshada ma masaajidda lagu dhiso ma jaamacadaha lagu dhiso ama wadaha lagu sameeyo laakiin markii inta la iibiyo qof jeebkooda ay ku dhacdo arrintaas waa khatar weey waxay u raatiraysaa taariikh ahaan bay u raatiraysaa dalka karaam ahaan bay luminaysaa تعب تعب خسارة في أرنتا سكينيسا وكم طيب هل هو يا قوي حر الصومالي كذا وشديد الصومالي أقرب تاريخه يا أكيد الدلك الصومالي ما يحكي في الدنيا أنا أنا ندبوا حسوي دينه وما تنتهي على هذا هذا الشيء بوليس كاس قاضي وأن بلا مشاري الله سين بقولكم وشاها دلك إني بدات شان هدر وبرنان تهاي وسيرحون إني بعصلان هدر وبرنان تهاي inay talada bisinka u qabtaan oo banaan tahay ciidanka laftigooda waa mas'uuliyad saaran dalka inay badbaadiyaan sideed bilood mushaarkay ma qaadan buu kuleeyahay madaxweynuhu markaas wuxuu yiraahdaa anaga mushaar nala kuma leh waa gafiska iyo askar weyn ay wada hadlaan baba waa in la ogaadaa askariga mushaarkiisa meel u maray war laftigeena mas'uuliyad baa idin saaran wad ku dhimateen oo ku dhaawacanteen oo ku jajabteen oo u gaajooteen waxa rabaa inaad gudataan mas'uuliyadiina laftigeena bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Saciid Cali Cilmi Murcayo waxaan halkaan inaan baaqiyad uga diro